السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله بدي جولاي وماني خميسة وهرجيسة waxaan jeclahay kooban inaan ka yiraahdo dib u curashadii radio Hargeysa. Radio Hargeysa koob iyo 40kii ayaa la furay 1940kii idaacad Soomaaliyeed oo la furay ugu horeysay ayuu ahaa kaydka ugu badan ee Soomaaliyeed baa ilaa maanta yaala idaacad walba way ka daawayntay idaacad walbana kolay BBC-da ku tahay barbaarinteedii iyo korinteedii waxbay ka qaadato marba heelooyinkii laga tumiyay radio Hargeysa oo dhan Hargeysa ay Soomaalidu dhimitumaysay saasay ahayd waxoogaa waxaan in yar ka odhanayaa idaacadihii ka furmay jabhadihii dib xoreynta qaran ee SNM iyo SDF ay ka mid ahaayeen SSF ayaa idaacad lahayd radio kulmis ayaa la odhan jiray bishii Oktoobar 1982 magaalada Addis Ababa iskaashi warfaafineed heshiis iskaashi warfaafineed ayaa SNM iyo SDF u dhaxmaray waxa lagu furay radio halgan oo ay labada jabhadood maamul jireen idaacadaas oo magaalada ku taalay magaalada Addis Ababa xaafadka Sanchez la yiraahdo marka loo baxo bariga magaalada markaad maskal flower ka dhaqaaqdo dhinaca bariga idaacada waxa la soo xiray 6 Abriil 1988 waxay la xidhantay heshiiskii Mingista iyo ay wada galeen Maxamed Siyaad Barre ciidamada lagu kala guranayay kaasaa lagu daray in dacaayadaha la kala joojisto radio halgan sidaas ku xidhmay dabeedna anagu 89kii bishii February kalfadhi aan caadi ahayn oo SNM ku lahayd magaalada Beligubadle waxa lagu go'aamiyay xaruntii ururka in laga dhigo Beligubadle waxa kale oo go'aaminay in idaacad la keeno idaacadiina waa la keenay bilaamaar 5 May 1989 ay idaacadaasi ku suntan tahay inay hawada gashay radio yar oo computerkan laptopka laba goor ka weyn company la yiraahdo Kemood ayaa lahayo Mareykan ayaa sameeyay taasana loo keenay 1 kilowatt bay ahayd laakiin tii ilaa bariga Afrika iyo waqooyiga in badan oo kale ay gaadhaysay idaacada waxa la oran jiray radio SNM radio SNM waxa ka hawlgali jiray wixii ka soo haray radio halgan ee SNM ahaa oo aad u yaraa farakutiris ahaa iyo shaqaalihii ka shaqeynayay hawlwadanadii radio Hargeysa saddex kaamo kala duwan idaacada wareegta la oran jiray ayaanu degnay dabeedna halkan ayaa la soo galay 1990kii idaacadii anagoo wadana mishiiro 4kV oo 4 taayir loo la riixo electricana way lahayd taambugiyaan hoos gali jirnay saddex barood bay ka degtay Beligubadle siyaasad loo oran jiray idaacada wareegta si waan ku soo galay Hargeysa dabeedna idaacadu dhowr meelood ayay degtay kulba mid ka guureysay bartii ugu horeysay ee idaacada la dhigay waxay ahayd maktabada masaarida ee madaxtooyada ku xigta waanu ka rarnay halkan soltalkaanu dhignay oo iskaagsiintu aan jirtay oo halkii idaacadii ugu horeysay radio Hargeysa radio Kuru markii loo oran jiray halkii lagu bilaabay ahayd ayaanu degnay waanu ka guurnay gurigan shaqaalaha ayaanu haddana cabaar deganayn dabeedna waanu ka guurnay garoonka Timcade ayaanu degnay aanu markaa xogeeyaa warfaafinta ee SNM baan ahaa waxa la oran jiray radio SNM dabeedna anagoo qalabkaygii sidana ayaanu halkaa degnay markiiba waan rakibanay markii dagaaladii dib u xoreynta ay soo gaadheen Hargeysa ee ciidamadii cadawga halkan ay ka baxeen idaacadiina way qaateen gaari Land Rover gaari studio weyn iyo gaari idaacadu saarneyd waxaan ku guuleysanay meel kale beerka in yar ka sheesay inaan ka soo helay gaariga idaacada oo sanco Ruusha mise Chinese baa aad u gabowdo bidaaya gaarigaasi wali wuxuu yaalaa raqdiisii waxay taala radio Hargeysa dabeedna kaayagii yaraa waan iska shidanay kana waanu shidnay dabeedna cabaar baanu isticmaalaynay markaa waxa gacanta ku hayay idaacada iyo waaxda warfaafintaba xoghayntii warfaafinta SNM gudida fulinta iyo ururka SNM sidii baanu oran jirnay halkan waa radio SNM
shirkii burcaa dhacay dabeedna dawlad baa lagu dhisay jamhuuriyaddii ugu horeysay ee Somaliland cabdiraxmaan axmed cali naxariista jannaalaas iyo madaxweynaha ka noqday xasan ciise ku-xigeen ka noqday aniga berigaa xogeeye warfaafinta waa laga bedelay cismaan aadan dool nin quulo la oran jiray ayaa noqday xogeeyaha warfaafinta dabeedna Hargeysaan ku nimid ayaanu nimid sidii ay u dhammayd wixii aanu gacanta ku haynay ee sanam lahayd oo dhowr waaxeed ahayd dhowr waaxood kooxdii fan ku jirtay qaybtii farsamada ku jirtay radio Hargeysa ku jiray kaydkii cajaladu ku jiray wixiiba waxaan ku wareejinay wasaaradii warfaafinta cusbayd ayaa saldhig looga dhigay 19 markii la soo galay ilaa May 19 wax allaale wixii ugu badnaa ee aanu ururin karaynay ee cajalada ahaa ee qalab warfaafineed ahaa ee kamera ahaa ee rikoodhadii u harkaa ahaa dadku shacabka iman jireenoo wixii ay ka helaan ka qaadan jireenoo wadada shacabka ayaa la mari jiray halkaas Sooyaal hortiisa ayaa ciidankii idaacadda ilaalin jiray balgoodlo nala soo guuray markana ilaalinay ay istaagi jireen waxa wixii qalaba iyo wixii cajalada waanu xareyn jirnay marka kayd badan ayaanu sidaa ku soo xareynay radio Hargeysa ayaa markaa radio SNM hawada uu ka baxay dawladdii baa dhisantay dabeedna magacii baa soo noqday halkan waa radio Hargeysa codka jamhuuriyadda Somaliland saasay ku dhisantay radio Hargeysii dambe mahaddeeda ilaahay baa leh shacbiga leh inamadii hawlwadeennada ahaa kolkoodan radio Hargeysa ka shaqayn jiray intooda badan markii dambana radio SNM ka shaqayn jiray ayaa mahaddeeda waxa la ciidankii dhowr iyo 20 ahaa ee balgoodle ku ilaalin jiray idaacadda ee soo raacay halkan yimid ee markii dambana ilaalinayay dabeedna dawladdii ka dambeysay waxyaabihii ugu mudnaa ka dhacay waxa ka mid ahaa markii deerka la dhisayay in caruur qasacada caana boodha ku fadhiisata nus saacadooda ku deeqeeno laba saddex weynta isu tagaan xabad jaajuura ay keeni jireen nafurkaas iyo dadaalkaas ayay ku dhisantay oo ay ku hawlgashay oo ay maantana ku shaqaynaysaa sidaasay tahay in lagu xusuusnaado iyo karaamada uu dadku leeyay markuu isu tago radio Hargeysa kaliya ma dhismine wadankoo dhan baa dhismay waxyaabaha inaga maqana waa waxaynu karayno inaynu ku darno oo aynu dhisno intaasaan ku soo koobayaa ilaahay baa mahaddeeda leh dadweynaha mahaddeeda leh waxaan xasuustaa markaan radio SNM joognay aanu kaynta joognay 5 May laga bilaabo ilaa laga soo galay hal habeen ay hawada ka maqnaatay idaacadaas register baa jiray markii ugu dambeysay Ibrahim Shiina hayn jiray oo farsamayaqaanadii ugu waaweynaha markii kaliya ay hawada ka maqnaatay habeen buu ahaa habeenkaas wuxuu 12 Abriil 1990 shirweynihii lixaad baa ka socday balgoodle maalintaas inamadu way mudaharaadeen registerkii maalinta la qoriyay bogaasi wuu banaanaa ma garanayo registerkii inuu weli yaaliyeen kale laakiin tii habeen kale idaacadda kama maqnaan waxay ka dardar kululeyd oo ay ka darbanayd oo ay ka diyaarsanayd idaacaddu markii keenta taalay markii halkan la yimid cid waliba idaacadda way iska ilowday inuu waliba hawlihiisu ku faafacay dawlad baa idaacadda dawladdu ka shaqeyso dawladduna mid waxay sameeyeen laakiin tii markay taalay balgoodle marna ma ishtaal beelin marna hawada kama maqnaan habeenka mooyaan